وهذا موحد إلى رجعنا دن سومالي أجا لجوسه علينا يا أيوب كارلو شبلالا قريقان شرم بوي عبد دانتو الأولتيم بروريان ميساق علوس عون إلا بندا وأملينا dadkii ugu caansanaa kuwii darbiga ka booday ayaa waxa ay bilaabeen inay boorsooyinkooda xirxirtaan oo ay isku diyaariyaan tarxiilka oo Donald Trump la sugayo waxaana ugu horeeya garyaqaan oo arkaysaan isagoo boorsadiisu ay u diyaarsan tahay sidoo kalena dhahaya anigu reedda ayaan ahay ee markaa la celinaya raggaas kale oo aan soo sheegay iyo dumarka kale ee darbiga ka booday iyaguna isla dhibkaas oo kale ayay la qabaan dadka Soomaalida ah ee Mareykanka darbiga ka booday kuwa caanka ah iyo kuwa aan caanka ahaynba waxay noqon doonaan labadan qaab midkood ama laba waxyaabood ay la kala doonaan mid ismaareeya oo isfarsameeya hadii uu nin yahay gabar muwaadinad ah guursada hadii ay gabar tahayna wiil muwaadin guursata mid yaani sida isku farsameeya oo inta uu tarxiilku bilaabanba meel isku sii ogaada sidoo kalena yeesha qof noloshiisa kafaala qaadaya oo bari u doodaya waxayna arintaani si gooni ugu sii fududahay dadka caanka ah wiilasha iyo gabdhahaba maadaama iyagu ay yihiin dad bulsho badan ay garanayso meel kasto ay tagaan la salaamayo oo dadku ay la hadlayaan sida darteed waxa fududaanaysa in xaaladooda laga warhayo oo dadku ay weydiiyaan waxa ay ku sugan yihiin iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin qaybta kale ee soo hartay ee aan isfarsamayn ama weyda qof ay wax ku darsadaan waxa ay iska sugi doonaan ilaa inta laga tarxiilayo waxaana u xirxirnaan doona boorsooyinkooda oo waxa ay ku qanci doonaan inay meelihii ay ka imaadeen oo ay noloshooda ku dabari jireen ay ku laabtaan sida Soomaaliya Kenya South Africa iyo meelaha kale ee Soomaalidu ku nooshahay waxaan rajeynayaa Ilaahay idankiisa in qof kasta oo jecel inuu halkaas sii joogo oo meel uu Ilaahay madaxa u geliyo oo si uu ku badbaadiyo ogowna si guud markii la yiraahdo dadka Soomaaliyeed ee darbiga ka booday ee hadda Mareykanka jooga hal qodob oo kaliya ayaa lagu soo celin karaa qodobkaas oo ah in Trump wali uusan ka laaban ama Soomaaliya uu ku soo daro wadamadii Mareykanka oo horay bank uga saaray hadii ay Soomaaliya ka simid ahaato wadamadii muslimiinta ahayd ee markii hore ee uu ninkaani joogay oo u diiday inay wadanka Mareykanka soo galaan dugsiga Daarusalaam Quraan online duruusta kala duwan ee lagu baranayo waxa ka mid ah barashada iyo xifdinta Quraanka Kariimka ah muddo kooban waxaana lagu barayaa hikaada barashada ducooyinka iyo barashada asaasiyaadka diinteena waxaana dugsiga barayaalka ah macallimiin khibrad iyo waayo aragnimo u leh habka wax u dhigista iyo tababarida carruurta waxaanad kala xiriiri kartaa lambarada shaashada kaaga muuqda waxa dhici doonta in inta joogtana la soo tarxiilo qofka dambe oo hadda galayna laga diido ay u suurta gali weyso qofkaasi sidoo doonaha ku gale dacwo group 5 qaxooti lottery adiga qaab kasto ay Soomaalidu Mareykanka ku tagi jirtay waxa uu ka dhigi doonaa waxba kama jiraan laakiin hadii uu ka saaro oo uu ka bixiyo wadamada uu banka ka saaray inay wadanka Mareykanka imaadaan waxa macquul ah in arrintu sidaas ka fududaato dadka Soomaaliyeed loo ogolaado inay wadanka Mareykanka galaan waayahay haddaba dadkaas aan magacayadooda sheegay oo aan soo qaatay muuqaaladooda kaliya waan ku soo hal qabsanayay macnaheedu ma ahan in dadkaan ay ugu horeeyaan dadka la soo celinayo ama ba la soo celinayo waxaan rajeynayaa in dhamaantood la soo celin ay badbaadaan ilaahayna uu Trump qalbigiisa ka leexiyo inta iyagu ay jecel yihiinna ay Mareykanka ku noolaadaan insha Allah wax dhibana ma arkayaan oo hadda waxa laga yaabaa raggaani inay dhamaantood mar hore isfarsameeyaan oo xitaa ilmo loo dhalay sidoo kale dhamaan dadka kale ee halkaas jooga iyagana waxaan u rajeynayaa in ay sidoo kale badbaadaan meelna ay isku ogaadaan adinkuna waad ku maasan daawashadiina waxaad ilaahay soo dhawaada wassalaamu calaykum